بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaad nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah ee daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allah ta'ala haddaba walaalayaal waxaa iib ah oo la gadayaa gurigan hadda u jeedaan waxaa hadda kaamirada haysaa gudaha guriga banaankana insha Allah waa idin tusi doonaa haddana waa soo aragteen qayb ka mid ah marka ku soo dhawaada ka faa'iideysi wacan gurigan waa kana banaankiisa waa guri dhisan oo maasha Allah ah sidaad aragtaanba waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uu uga sii yaalaa degmada Kaaraan waxa uu uga sii yaalaa laanta Wajeer ama xaafadda Wajeer oo ah xaafad ka mid ah degmada Kaaraan xaafadaha ugu waaweyn xaafad caan ah oo aad u shidan haddii aan Wajeer fikrad idin ka siiyo waxa ay ku dhowdahay ama ay xigtaa dhanka xeebta waxa ay diris la tahay degmada Cabdicasiis waa dhanka Kaaraan iyo Cabdicasiis ay diriska ay ka yihiin meesha oo guriga oo ku yaalo waxaa loo sii yaqaanaa Faadumo Xaayow waa sida dadka ay u yaqaanaan haddii aan ka hadalno xagga laamiga waxaa u dhow laamiga ka yimaada isgooska Mirnaayada ee aada xeebta loo yaqaan Dahab Marina Beach oo ah meesha mashruuca dhismaha ee Dahab Marina laga wado waagi horena waxaa wadadaas loo yaqaan wadada tagta dhankaas iyo Keesanay aada waa wada laami ah laamiga ka dare ayaa loo yaqaanaa waxaa la dhisay sanadkii 2022 ayaa dib u dhis fiican lagu sameeyay marka runaantii booskan wuxuu ku yaala meel istiraatiiji ah laamigaas aad ayuu ugu dhow yahay laamiga waxaa ka xigta oo kali ah 8 boos waxaa ka soo leexanaysa aagaarka warshada Alfurqaan ee doomanka sameysa waa la wada garanayaa waa meel caan ah muddo meeshaas ku tiile doomanka ayaa lagu sameeyaa marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta fursadan qaaliga ah haddii aan ka hadla cabirka oo gurigan ku fadhiyo waxa uu ku fadhiyaa 12 lagu dhuftay 12 ama doodisho bardoodisho sida ay dadka qaar ay u yaqaanaan sida ujeedaan waa guri dhisan waxaa ka dhisan 5 qol oo 4 qol oo ka mid ah ay tahay jiingad bacweyne ah hal qol oo ka mid ahna uu yahay qol sar ah sidoo kale musqusha waa iyadana sidaas oo kale waa ay dhisan tahay waa bulkeeti ma aha jiingad ama sar dadka qaar sida u yaqaanaan guriga albaabkiisa waa aragtaan darbiga wareega oo dhan waa u dhisan yahay waa bulkeeti ma aha maxaa la lahaa lamiyeri ma aha ma jiingad ma aha marka ku soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta qolalka waa 5 qol jikadiisa musqushiisa wixiisa dhan waa ay u dhan yihiin guri maasha Allah oo maanta lagu nool yahay haddii aad gurigan gadatid hore ayaa ka degi kartaa sidoo kale walaalayaal gurigan waa bar ujeedka waa la jecel yahay waliba Kaaraan aad ayaa looga jecel yahay waxaa yeelay guri wuxuu noqonayaa galabtii hoos fiican yeelanayo xeebtii kugu dhow waxa fiican aad ka helaysid haddaba galab waaye markaan la duubo muuqaalka hooskaas fiican ayuu leeyahay marka ku soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta haddii aan ka hadlo xagga dukumiintiga dhulkaan dukumiintigiisa ama gurigan dukumiintigiisa waa uu dhan yahay waa nadiif waa dukumiintiyadii Maxamed Siyaad Barre wax ka maqan ma laha marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta oo tahay alla mid ay jeceshahay ayaa lagu geenayaa si dukumiintiga laga xaqiijiyo haddii aan u gudbo xagga
qiimaha lagu rabo gurigan waxaa lagu rabaa $38,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah maca dalaal. qiimahaas runtii waa macquul maxaa yeelay waxaa ku helaysaa guri dhisan haddana meel fiican ku yaala xaafad maasha allah ah laamiga u dhow. laamiga waxaa ka xigta sida idin sheegay 9 boos oo keli ah waa booska 10aad sidoo kale waa 2 jidle. marka gurigan haddii la fiiriyo waxyaabo badan oo guri lagu xulo lahay ayuu leeyahay. waxa ugu muhiimsanna waxaa waaye dokumentiga iyo waxyaabaha kale laga fiiriyo jidka labadaba guriga waa isku haystaa. laamiga hadda kasoo leexdo toos ayaa u imaanaysaa wado weyn ayuu guriga saaran yahay. wadooyinka hadda hormara waa 12 mitir waa wado weyn oo dhowr baabuur ay isku gudbi karto. marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta fursadan. haddaba walaalayaal gurigan haddii aad ku qanacdaan ee aad gadataan waxaa idinka anfici karaa waxyaabo fara badan. haddii aad deegaan u baahan tahay oo deegaan dartiisa aad u gadanaysid reerkaaga waad degsan kartaa. waa xaafad maasha allah ah weliba ka iloobina suuqii Kaaraan ayaa ku dhow. waa meel suuq leh baabuur leh oo maaragtay waxa u dhaxeeya gurigan 3 laami. laamiga aadin sheegay ee aada dhankaas iyo Marina Dahab Marina sidoo kale waxaa u dhow laamiga kale ee Kaaraan ee suuq Kaaraan gala ee laamiga Kaaraan loo yaqaano. sidoo kale laamigan kale oo ka yimaada jeerada ee gala xeebta Liida asagana kama fogaanayo. marka waa guri maasha allah meel istiraatiiji ah ku yaalo deegaan aad ugu fiican sidoo kale mustaqbalna ku fiican oo hadaa fiiriso jidadkiisa iyo laamigiisa ugu dhow yahay iyo xeebtaas ugu dhow yahay waa dhulalka mustaqbalka wax naqan kara. maxaa yeelay wadanka haddii uu sii hagaago waxaa meeshaas ay naqan kartaa meel dalxiis hoteelo iyo mashaariic fara badan ayaa laga sameyn karaa. xeebtan hadda guriga uma dheera 1 kilomitir ka yar inuu u jiro ayaa qiyaaseena. Liida haddii la kilomitir ma ka badnaba. marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta fursadan. haddii aan si kooban idinkugu soo celiyo xogta gurigan oo dhameystiran walaalayaal gurigani waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho degmada Kaaraan xaafadda Wajeer. cabirka oo ku fadhiyo gurigan waa 12 lagu dhufto 12. waxa uu dhow yahay laamiga ka yimaada isgooska Marina ama Mirnaayada ee loo yaqaan Kadare. waxa uu laamiga u jiraa 9 boos waa booska 10aad waa dhisan yahay. waxaa ka dhisan 5 qol oo mid kamid ah uu yahay sar 4 kalena ay yihiin jiingad bacweyne ah. dokumentigiis waa nadiif waa Maxamed Siyaad Barre. qiimaha lagu rabo waa $38,000 Mareykanka oo isku dhammaad ah. daawasho wacan ka faa'iideysi wacan. waxaa aad diyaar u nahay inaan soo tusino haddii aad ku qanacdaan tayada jeceshaan idinkaga wareejino. waa ku mahadsantihiin. ugu dambeyn walaalayaal daawashada muuqaalka waxaan idinka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambalaalkana aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha kale aan mustaqbalka soo gelino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya. haddaba walaalayaal sidaad nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah ee daawasho wacan ka faa'iideysi wacan. waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha allahu tacaala. haddaba walaalayaal waxaa iib ah oo la gadayaa gurigan hadda aad u jeedaan. waxaa hadda kaamirada haysaa gudaha guriga banaankana insha allah waa idin tusi doonaa. haddana waa soo aragteen qayb ka mid ah. marka ku soo dhawaada ka faa'iideysi wacan. gurigani waa kana banaankiisa waa guri dhisan oo maasha allah ah sidaad aragtaanba. waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho. waxa uu uga sii yaalaa degmada Kaaraan. degmada Kaaraanna waxa uga sii yaalaa laanta Wajeer ama xaafadda Wajeer oo ah xaafad ka mid ah degmada Kaaraan xaafadaha ugu waaweyn
xaafad caan ah oo aada u shidan. haddii aan wajaar fikrad idinka siiyo, waxa ay ku dhowdahay ama ay xigtaa dhanka xeebta. waxa ay diris la tahay degmada Cabdicasiis, waa dhanka ee Kaaraan iyo Cabdicasiis ay diriska ay ka yihiin. meesha oo guriga oo ku yaalo waxaa loo sii yaqaanaa Faadumo Xaayow, waa sida dadka ay u yaqaanaan. haddii aan ka hadalno xagga laamiga, waxaa u dhow laamiga ka yimaada isgooska Mirnaayada ee aada xeebta loo yaqaano Dahab Marina Beach, oo ah meesha mashruuca dhismaha ee Dahab Marina laga wado. waagii horena waxaa wadadaas loo yaqiino wadada tagta dhankaas iyo Keesaney aada. waa wado laami ah, laamiga Kadare ayaa loo yaqaanaa. waxaa la dhisay sanadkii 2022 ayaa dib u dhis fiican lagu sameeyey. marka run ahaantii booskani wuxuu ku yaalay meel istiraatiiji ah. laamigaas aada ayuu ugu dhow yahay. laamiga waxaa ka xigta oo keli ah 8 boos. waxaa kasoo leexanaysa aagaarka warshada Alfurqaan ee doomanka sameysa. waa la wada garanaya, waa meel caan ah, muddo meeshaas ku tiile doomanka ayaa lagu sameeyaa. marka soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta fursadan qaaliga ah. haddii aan ka hadla cabirka oo gurigaan ku fadhiyo, waxa uu ku fadhiyaa 12 lagu dhuftay 12 ama doodisho bardoodisho sida ay dadka qaar ay u yaqaanaan. sida ujeedaan waa guri dhisan. waxaa ka dhisan 5 qol oo 4 qol oo ka mid ah ay tahay jiingad bacweyne ah. 1 qol oo ka mid ahna uu yahay qol sar ah. sidoo kale musqusha waa iyadana sidaas oo kale waa ay dhisan tahay. waa bulkeeti, ma aha jiingad ama sar dadka qaar sida u yaqaanaan. guriga albaabkiisa waa aragtaan, derbiga wareega oo dhan waa uu dhisan yahay, waa bulkeeti, ma aha maxaa la dhahaa lamyeeri, ma aha, ma jiingad ma aha. marka kusoo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta. qolalka waa 5 qol, jikadiisa musqushiisa wixiisa dhan waa ay u dhan yihiin. guri maasha Allah oo maantaba lagu nool yahay. haddii aad gurigan gadatid, hore ayaa ka degi kartaa. sidoo kale walaalayaal, gurigani waa bari ujeedka waa la jecel yahay, weliba Kaaraan aad ayaa looga jecel yahay. maxaa yeelay guri wuxuu noqonayaa galabtii hoos fiican yeelanayo, xeebtii kugu dhow oo hawo fiican aad ka helaysid. haddaba galab waaye markaan la duubayo muuqaalka, hooskaas fiican ayuu leeyahay. marka kusoo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta. haddii aan ka hadlo xagga dukumiintiga, dhulkaani dukumiintigiisa ama gurigan dukumiintigiisa waa uu dhan yahay, waa nadiif. waa dukumiintiyadii Maxamed Siyaad Barre, wax ka maqan ma laha. marka soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta. oo tahay alla midda ay jeceshahay ayaa lagu geynayaa si dukumiintiga lagaaga xaqiijiyo. haddii aan u gudbo xagga qiimaha lagu rabo gurigan, waxaa lagu rabaa $38,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah maca dalaal. qiimahaas runtii waa macquul, maxaa yeelay waxaa ku helaysaa guri dhisan, haddana meel fiican ku yaala, xaafad maasha Allah ah, laamiga u dhow. laamiga waxaa ka xigta sida idin sheegay 9 boos oo keli ah, waa booska 10aad. sidoo kale waa 2 jidle. marka gurigan haddii la fiiriyo waxyaabo badan oo guri lagu xulo lahay ayuu leeyahay. waxa ugu muhiimsanna waxaa waaye dukumiintiga iyo waxyaabaha kale oo laga fiiriyo jidka. labadaba gurigan waa isku haystaa. laamiga hadda kasoo leexdo toos ayaa u imaanaysaa, wado weyn ayuu guriga saaran yahay. wadooyinka hadda hormara waa 12 mitir, waa wado weyn oo dhowr baabuur ay isku gudbi karto. marka kusoo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta fursadan. haddaba walaalayaal, gurigan haddii aad ku qanacdaan ee aad gadataan, waxuu idinka anfici karaa waxyaabo fara badan. haddii aad deegaan u baahan tahay oo deegaan dartiisa aad u gadanaysid, reerkaaga waad degsan kartaa. waa xaafad maasha Allah ah. weliba yaana kaa iloobina suuqii Kaaraan ayaa ku dhow. waa meel suuq leh, baabuur leh,
oo maaragtay waxa u dhaxeeya gurigan 3 laami. laamiga aadin sheegay ee aada dhankaas iyo Marina Dahab Marina. sidoo kale waxa u dhow laamiga kale ee Kaaraan ee suuq Kaaraan gala ee laamiga Kaaraan loo yaqaano. sidoo kale laamigan kale oo ka yimaada jeerada ee gala xeebta Liida asagana kama fogaanayo. marka waa guri ma sha Allah meel istiraatiiji ah ku yaalo, deegaan aad ugu fiican, sidoo kale mustaqbalna ku fiican oo hadaa fiirisid jidadkiisa iyo laamigiisa ugu dhow yahay iyo xeebtaas ugu dhow yahay. waa dhulalka mustaqbalka wax naqan kara, maxaa yeelay wadanka hadii uu sii hagaago waxaa meeshaas ay naqan kartaa meel dalxiis, hoteelo iyo mashaariic fara badan ayaa laga sameyn karaa. xeebtan hadda guriga uma dheera, wax 1 kilomitir ka yar inuu u jiro ayaa qiyaaseena. Liida hadii la raaco kilomitir ma ka badnaba. marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta fursadan. hadii aan si kooban idinku soo celiyo xogta gurigan oo dhameystiran, walaalayaal gurigani waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho, degmada Kaaraan, xaafadda Wajeer. cabirka oo ku fadhiyo gurigan waa 12 lagu dhufto 12. waxa uu dhow yahay laamiga ka yimaada isgooska Marina ama Mirnaayada ee loo yaqaan Kadare. waxa uu laamiga u jiraa 9 boos, waa booska 10aad. waa dhisan yahay, waxa ka dhisan 5 qol oo mid kamid ah uu yahay sar, 4 kalena ay yihiin jiingad bacweyne ah. dokumentigiis waa nadiif, waa Maxamed Siyaad Barre. qiimaha lagu rabo waa $38,000 Mareykanka isku dhamaad ah. daawasho wacan, ka faa'iideysi wacan. waxa aad diyaar u nahay inaan soo tusino hadii aad ku qanacdaan tayada jeceshaan idinkaga wareejino. waa ku mahadsantihiin. ugu dambeyn walaalayaal daawashada muuqaalka waxaan idinka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambalaalkana aad furataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha kale aan mustaqbalka soo gelino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.